wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ay weheliyaan wufuud khubaro ah ayaa u kuurgalay sida ay u socoto howlaha shaqo ee hanaanka diiwaangelinta madaniga xarumaha ay ka socoto caasimadda Hargeysa iyagoo goob u dul istaagay meelaha ay booqdeen ee diiwaangelintu ka socoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa si qoto dheer u sharaxay ahmiyadda qaadashada kaarka dhalashada uu leeyahay ummadda isla markaana sheegay in socdaalkoodan ay kula soconayaan hawnaanka hawl shaqo ee diiwaangelinta madaniga waxay si habsameen ugu socota hay'adda diiwaangelinta muwaadiniinta reer Somaliland oo meel kasta aan tagno maanta dadku aad arkayseen sida kuyuga ugu jiraan runtii waan ugu hambalyeynaa dadku say ugu soo baxeen inta dhiman waxaan rajaynayaa inay iyaguna ka faa'iideystaan fursadda waa qarannimadii waa qofka oo muujinaya inuu dalkiisii maanta Somaliland yahay marka dadku waxaan u soo jeedin lahaa inay si fiican ugu soo baxaan waan uga mahadcelinaynaa hawlwadeenada hawshooda siday u maamuleen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Maxamed Aadan Cilmi Ilka Case ayaa ka waramay in wafdigan indhaynayaan sida ay u socoto diiwaangelinta madaniga isagoo bulshada ku dhaqan magaalo madaxda gobolka Togdheerna ugu bishaareeyay hirgelinta idaacad FM oo ay kala socon doonaan raadiyo Hargeysa dadka reer Hargeysa diiwaangelina aad baan ugu mahadnaqaynaa leenahay Ilaahay khayr ha idin siiyo waad fahanteen fariintii aan idin sheegaynay ah kaarkiina qaata shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo bahda kale wacyigelinta guud bana waxaan leeyahay waad mahadsantiin si aad wacyigelinta uga qayb qaadanaysaan FMT Burco way naga xidhnay marka dadweynaha reer Burco waxaan leeyahay reer Burco ay ku soo dhawaada raadiyo Hargeysa gudoomiyaha guddida Olombikada Somaliland Xasan Waraaba Cadde ayaa ka waramay faa'iidada kaarka dhalashada uu leeyahay bulshada isla markaana ku dhiirigeliyay inay dadku ka qayb qaataan diiwaangelinta مسؤولين تجوبها الديوان قلنتو كورقة على شذا السوماليلاند وحوين بفائدة وتاي وأنا كفر حسن هاي سببته أني كمواطن كي وحموتشر يا بري ورقدي سي مواطن هذا يكارك سي مواطن هذا شعب وينها وحلاها كقريب قلان مسؤولين تجوبها الديوان قلنتو كسعتي وفتجني أي بغدين أيام مدحدنو إفتيمية سيدا أو سعتها هوشو يسيدا مربى مركز كدم بيساعدات كوسو بدنيان muwaadiniin qaadanayay kaarka dhalashada ayaa iftiimiyay dareenkooda farxadaysan ee ku salaysan qaadashada kaarka muwaadinka Somaliland xubno ku hadlayay bahda waxbarashada Somaliland ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan isla markaana ay isdiiwaan geliyaan si ay uga midho dhaliyaan hadafka himilada Somaliland oo ah inuu noqdo qaran madax bannaan